kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada page-keena Mnur Official. Maanta waxaan ka hadli doonaa faa'iidada ay leedahay inaad noqotid qof naxariis badan. Maxay tahay waxa aad ka faa'iideyso naxariista? Ma laga yaabaa inay farxad kuu keento ama ay caafimaadkaaga kordhiso? Inkastoo ay suurtagal tahay in arrimahaasi ay run yihiin, haddana saynisyahano iyo aqoon-yahano kale oo cilmi baaris waday waxay sheegeen in naxariistu wax badan ku qaban karto sida cimri dheeri. Khubarada Machadka Naxariista ee Badari oo hoostaga jaamacadda ku taala magaalada Los Angeles ee gobolka California ayaa diyaar u ah in ay si wanaagsan u sharaxaan arrintaas. Dhinaca sayniska ayaa ka eegaynaa annaga intaan si wareeg ah u fariisano ayaan gacmaha isqabsanaa, waxaana ka hadlaynaa faa'iidada maskax ahaanta ah iyo tan jir ahaaneedba ee la xiriirta isdhexgalka dadka. Waxaa sidaas yiri Daniel Fessler oo ahaa agaasimaha machadkaas. Aragtida laga qabo naxariista ayaa dhowaan qabsaday hadalhaynta warbaahinta caalamka. Dhowr goor ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ka hadlay arrinta isu naxariisashada. Qofka awoodda badan waa midka naxariista badan. Ma jiro waxa ay ku liidato inaad naxariis yeelato, dadkana u dhimrisid, ayuu yiri. Ma jirto waxa ay ku liidato inaad dadka kala caawisid. Qalad ma aha, sharaftaadana waxba uma dhimayso inaad dadka kale qadarisid. Maalinta naxariista caalamka oo ah 13 November waxaa loo sameeyay si dadka ay u bartaan micnaha naxariista, iyadoo la isweydiinayo waa maxay sababta ay muhiim u tahay. Tani waa waxa ay khubarada doonayaan inay soo ogaadaan. Dhab ayayna ka tahay in ay cilmi baaristaasi sameeyaan. Hawsha uu ku guda jiro Master Fessler waxay la xiriirtaa sidii dadka loogu dhiirigelin lahaa inay isu naxariistaan oo ay yeeshaan qalbi damqada. Wuxuuna doonayaa in la wada arko faa'iidada ay taasi leedahay. Waxay ila tahay in hadda la dhihi karo waxaan hadda ku noolnahay duni aysan naxariis ka jirin. Gudaha Mareykanka iyo caalamka intiisa kaleba waxaan ku aragnaa qalalaase iyo dagaalo sii badanaya oo ay u dhaxayso dadka ku kala aragti duwan siyaasad ahaan ama diin ahaan, ayuu yiri. Wuxuu sheegay in uu aaminsan yahay in naxariista ay horumar gaarsiin karto dunida, halka naxariis darrada ay ka hooseyso burbur iyo dib u dhac keliya ah. Daniel Hunt oo ah madaxa jaamacadda California ayaa tilmaamay in uu doonayo in daraasadani ay noqoto mid diiradda lagu saarayo siyaasadaha iyo qalalaasadaha ka jira caalamka. Inkastoo haddaba ay dunidu ku nool yihiin dad badan oo naxariis leh, haddana Master Fessler wuxuu yiri naxariistu way ka sii dhammaanaysaa dadka badankood, waxayna sii luminayaan qadarinta ay isku hayaan. Machadka uu khabiirkani agaasimaha ka yahay waxaa lagu aasaasay lacag dhan 20 milyan oo ay bixisay hay'adda samafal ah, taasi oo si wadajir ah ay u abuureen samafalayaasha lagu kala magacaabo Geneva iyo Matthew Harris. Master Harris wuxuu sheegay in cilmi baaristani ku saabsan tahay naxariista ay tahay mid loo baahnaa si loo fahmo sababta ay naxariista laga maarmaan ugu tahay xilligan casriga ah ee caalamka. Dhowr sir ah oo ku saabsan sida loo noqdo qof naxariis badan, sida ay ku talinayso khabiir dhinaca naxariista ah oo lagu magacaabo Gabriel Van Rij. 1. Bilow in aad si dhab ah u dhageysatid dadka kale ee kula hadlaya ka hor inta aadan ka fikirin jawaabo lid ku ah hadaladooda. 2. Qofka si qalafsan oo xun kula dhaqan si naxariis leh. Hadallo macaan ugu jawaab kuwa adag ee lagugu dhaho. Kula tali dadka kale inay dabeecad fiican kula dhaqmaan qof kasta, mid ay garanayaan iyo qof aysan garanaynba. 4. Faham marka ay meel ka jirto naxariis daro. Haddii adiga lagugu sameynaya ha ka falcelinin, balse taas beddelkeeda ka fogow meesha ay xaaladaasi ka jirto. Gunaanadka warbixintayna maanta waxaa jira faa'iidooyin badan oo ay leedahay inaad noqoto qof naxariis badan. Ayadoo taa laga duulayo ayaana loo sameeyay maalin khaas u ah naxariista. Inkasta oo diinteenu Islaamku ay mar waliba na farayso inaan isu naxariisano. Waad ku mahadsantihiin daawadayaal, soo dhawaada.